milkiilaha Facebook ninka lagu magacaabo Mike Zuckerberg ayaa raaligelin ka bixiyay ciladii ku timid ababka Facebook, Instagram-ka iyo WhatsApp-ka taasoo hawada ka maqneed maalintii in ka badan 6 saacadood maalintii shalay ee Isniinta taasoo saameyn ku yeelatay in ka badan 3.5 bilyan oo isticmaalayay ababka Facebook, Instagram-ka, WhatsApp-ka oo ku kulnool daafaha dunida. Milyaneerkan ee dhalinyarada ee 37 jirka ah ee u dhashay Mareykanka Facebook leh Mark Zuckerberg ayaa sheegay in ciladu ay ahayd dhanka internetka. qadka ayaa hawada ka maqnaa in ka badan 6 saacadood shalay galab markay ahayd saacada 4 galabnimo ama 10 saac cid walba siday u taqaanaba, waxaana dib ugu soo laabtay habeennimadii markay ahayd 10kii habeenimo ama 4 saac oo habeenimo. shirkadda Facebook iyo Instagram-ka iyo WhatsApp-ka ayaa waxaa ku xiran malaayiin dad ah iyo ganacsato oo adduunka ku nool. dadka aalada internetka ama WhatsApp-yadan ama ku takhasusay ayaa sheegaya in ay tahay hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid Facebook. dad badan ayaa walwal ka qabay oo soo galay TikTok kuna sheegayay dad badan ayaa ku wada xiriira eheladooda iyo qaraabadooda oo dunida ku kala nool iyo asxaabtooda iyo familidooda. waa markii ugu horeysay cilad ay ku timaado qababkan Facebook iyo Instagram-ka oo hawada in ka badan 6 saac ay ka maqneed, sida wakaalada wararka ay qorayso Reuters. wariye madax bannaan Cabdinaasir Qujufa, freelance journalist and photographer, Dulqaad Media Show.